waxaad aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo boqol qof ugu saameynta badan Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqono boqolka qofood ee saameynta ku lahayd sanadka tagay. iyadoo la soo bandhigay boqolka qof ee ugu saameynta badnaa Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay 2022 waxaa liiska ka soo muuqday tababaraha xulka qaranka da'irta Soomaaliya Nuur Maxamed Amiin, ciyaaryahanka xulka qaranka Cabdixaafid Maxamed iyo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Mudane Cali Cabdi Maxamed Calishiine. waxaana sidoo kale abaalmarintan ka soo muuqday culamo diinka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana qiimeyntan soo saartay majalada Soomaaliya Magazine oo sanad kasta soo saarta dadka ugu saameynta badnaa sanadkaas. ciyaaryahanka xulka qaranka Soomaaliya Cabdixaafid Maxamed ayaa soo dhaweeyay inuu ka mid noqdo liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan Soomaaliya, isagoo u mahad celiyay dadkii ka shaqeeyay hawshan. waxaad aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo boqol qof ugu saameynta badan Soomaaliya. aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga gudoomiyay iyo iyo macallinkayga Nuur Maxamed Amiin iyo gudoomiyaha Calishiine in la doorto boqol qof Soomaaliya ugu saameynta badan. aad iyo aad ugu faraxsanahay li waxa sii wadnaa shaqadii intaas guulaasna waxa ku imaaday guulihii qaranka koobka la qaaday. insha Allah intaas in ka badan waan rajeynayaa intuu Ilaahay yiraahdo. haddana waxa wadnaa shaqadii ugu qayb galeen koobka Algeria. insha Allah waa guuleysana guul ka badan waan rajeynayaa. insha Allah waa mar walba la bixinaan insha Allah inaan ka mid noqono waan rajeynayaa intuu Ilaahay yiraahdo insha Allah. hogaamiyaha xulka qaranka da'irta Soomaaliya oo xulka qaranka u qaaday koobka 17 jirada bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakava ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in isaga iyo Cabdixafiid iyo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ay ka mid noqdaan liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan Soomaaliya. wuxuuna sheegay inay tani qayb ka tahay dadaalada ay sameeyeen sanadkii tagay. waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqono boqolka qofood ee saameynta ku lahayd sanadka tagay Soomaaliya Magazine oo gudoomiyaha iyo aniga iyo wiilkayga Cabdixafiid oo aan maartaa nagu doorteen ilaa maada ku maadsan yihiin. midda labaad waxaan rabaa inaan ka iraado arrinkaas. mid waa midaasoo gudoomiyaha horta asiga nasiibkiisoo qaatay muddada yareedoo maartaa oo dhowrka bilood oo hayay 53 ilaa hadda kaab aan la kaalin oo mas'uul ka ahay horta oo seen uu qaatay. hambalyan leh gudoomiyaha Calishiine. waxaan kaloo hambalyan leeyahay wiilkayga yar Cabdixaafid geesigayga oo asigana saameyn fara badan ku yeeshay inaan haddana guushaas aan hantino oo soo aan ogahay xaaladiisa aan la socdo waxa uu soo cunay energy asan hayn oo ku dadaalay inuu maarta result ku gaaro. ilaa maada ku maasantaan leeyahay. guud ahaan bahda ciyaaraha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay ka soo muuqashada liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan ee tababaraha xulka qaranka Nuur Maxamed Amiin, ciyaaryahan Cabdixaafid iyo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. waxaana macallin Shirwac Sandoor uu sheegay in tani ay ku timid dadaal ay sameeyeen saddexda shakhsi ee ka soo muuqday liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan Soomaaliya. waxay ku noqdeen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waa madaxa ugu sareeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Soomaaliyana saa ogtihiin waxay ku guuleysteen Sakava under 17. that's why waxay ku abtirsanayaan xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxay ku abtirsanayaan Calishiine. that's why Calishiine loogu doortay midda koowaad. tan labaad macallin Nuur Amiin waa macallinkii ku guuleystay under 17ka Sakava bariga iyo bartamaha. waana taariikhdii ugu horreysay Soomaaliya ay gaarto ama koob dibadda laga keeno ay soo qaado. asagana saasuu ku golayaa. Cabdixafiid asagana wuxuu ku galayaa saameynta waa ciyaartooygii ugu saameynta badnaa intay ciyaarayeen oo goolashii ugu muhiimsanaa soo dhaliyey. taas waa saddexdooda loogu daray. aniga ahaan qof walba fikiruu leeyahay waxaan dhihi lahaa in lagu daro goolhaya Marshaale sababtoo asaga naftigiisa saameyn badan uu ku leeyahay koobkaas. maadaama dadkan ay koobkaas ku soo wadgalayaan Marshaale in lagu daraan jeclaan lahaa asagana. Calishiine in 10 bilood oo xiriir kubadda cagta gacanta ku hay waxyaabo badan oo horumar ah oo la taaban karo ayuu xiriirka sameeyay. under 17 oo koob ku guuleystay sida dhalinyaro guddiga fulinta ku jirta oo qayb ka noqday tartankii Sakava ayagoo oo u shaqeynaya habka kaaf ay u shaqeeyaan. waxyaabo badan oo la taaban karo ayuu sameeyay gudoomiyaha Calishiine. waana nin u qalma maanta magacaabista loo magacaabo.